waa halyey geesi ah dagaalyahan soo majeesta iyo libaax aan la jebin karin cabsi la-aanna ku gala safafka hore ee saaxadda dagaalka xusida magaciisa ayaa ku filan jebinta iyo argagaxgelinta qulubta cadowga waa saxaabigii weynaa ee diraar binu aswad waa maalqabeen lahaa kungeela abwaan tiriye gabaya aan tiro lahayn iyo geesi aan marnaba ka gaban geerida waxa uu ka mid ahaa dagaalyahanadii ugu awoodda weynaa saxaabada marka magaciisa la maqlana waxa uu argagax iyo cabsi ka abuuri jiray qulubta cadowga man huwa haadihi lustuura diraar ibnu laswar waxa uu islaamay furashadii maka suubanaheena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu agtiisa ku lahaa qiimo weyn sidaa darteed nebigu waxa uu u diri jiray qabiilooyinka qaar si uu ula soo hadlo waxa uu ka qayb galay dagaallo fara badan sida dagaalkii xarbul murtadiin ee lagula jiray murtadiinta iyo weliba furashooyinkii deegaanka shaam waxa aad ugu tiirsanaaba oo ugu kalsoonaa hogaamiyihii islaamka ahaa ee khaalid ibnu waliid ilaa uu noqday ninka kusoo xiga haddii uu ku dhinto inta lagu guda jiro furashooyinka shaam waxaa kaluu ka qayb galay dagaalkii ajnaadiin oo uu hogaaminayay saxaabigii weynaa ee khaalid ibnu waliid isla markiiba diraar waxa uu tuuray gaashaankii laabta ugu jiray iyo khamiiskii uu xulnaa si uu uga fududaado culaysku waxaana uu bilaabay inuu la dagaalamo roomaanka isagoo laayay badankoogii intii kalena ka baxsadeen dagaalkii marji dahshuur diraar waxa uu la kulmay mid ka mid a hogaamiyeyaashii roomaanka oo la odhan jiray bawlos dagaalkuna ka bilaabmay dhexdooda diraar ayaana ka gacan sareeyay dagaalkii oo seeftiisii qoorta ka saaray hogaamiyihii roomaanka ahaa oo argagax iyo cabsi ka muuqato ayaa u qeyliyey khaalid ibnulwaliid isagoo doonaya inuu ka baxsado gacanta libaaxan khaalidna waxa uu ku yidhi waqaatiluka waqaatila ruum weedhanoo soo afmeertay nolosha mid ka mid ah hogaamiyeyaashii roomaanka waxaana ay u bixiyeen magac markii la maqlo gilgili jiray qulubtooda khaalid oo ka yaaban geesinimada libaaxan ayaa yidhi diraar waa inaan ka baqan geerida